jacaylku waa dareen intuusan eray noqon ka hor. doqonnimadu waa nuqsaan qofka ku jirta, mararka qaar in la isdoqomaysiiyana waa kamaal iyo dhammaystirnaan. mooganaantu waa dayac qofka ku dhaca, ismooganaysiintuna mararka qaar waa xigmad. ha u ogolaanin qofna inuu yaraysto waxa ku saabsan riyadaada, erayadaada iyo dadiiladaada, iimaankaaga, noloshaada. wax waliba oo ku quseeya ka yeel arrimo waaweyn oo aan la yasi karin. quudkaaga iyo waxaad cunto ha uga hor sheekaynin qof daciif ah. sacaadadaada iyo liibaantaadana ha uga hor sheekaynin qof murugsan. maalkaaga ha uga hor sheekaynin qof faqiir ah. miisaan hadalkaaga, ilaali dareemayaasha dadka kale, ahawna mid ku raaliya waxa uu haysto. ka fogow malaha xun, maxaa yeelay dhib ayuu keenaa. shakiga markastaana ka fogow, maxaa yeelay waxbuu duminayaa. isbarbardhigana ka fogow, maxaa yeelay waxbay dulminaysaa. ammaanta lagu tarax tegayana iska ilaali, maxaa yeelay beena lagu sheegaa. ma jirto raaxo ka weyn inaad iska dhaafto qofku niyad jebiyey, amaad iska cafiso midku xumeeyey, amaad kaalmayso mid kuu baahan adigoon beddelna ka qaadan, ama aad iska hilmaamto murugooyinkaaga, maxaa yeelay waxaad rumaysan tahay in ay berri wanaagsan tahay. dahirnaanta qalbigu ceeb maaha, ismooganaysiintuna dabaalnimo maaha, cafintu dacfi maaha, aamusnaantu afgaroocnimo maaha, waa tarbiyo iyo cibaado. nicmadu waxay u baahan tahay ka shukrin, beladu waxay u baahan tahay ku sabrid, dembigu wuxuu u baahan yahay ilaahay in dembi dhaaf la weydiisto. qofkii shukriya, sabra, allah dembi dhaaf weydiista, guusha iyo sacaadada wuu gaaray. rabbi aniga iyo adiga iyo dhammaan muslimiintaba ha u dembi dhaafee. isku day inaad walaalaha gaarsiido fariintan. mahadsanid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.